golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta soo ganaanuday kalfadhigii labaad ee golahaasi ku yeesho xarunta dawladda hoose ee magaalada Berbera. Kalfadhigaasi oo uu gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Cidin ayaa lagu ansixiyay ajendayaashii golaha deegaanka ee degmada Berbera ay ka doodayeen maalmihii u dambeysay. Shaqayaashaasi oo ay ka mid ahaayeen sidii xoolaha nool looga saari lahaa magaalada Berbera, ansixinta shaqaalaha dawladda hoose loo kordhiyay iyo waliba degsiimooyin laga samaynayo xaafadaha Finland iyo Sabawanaag oo ay murano dhulka taagan yihiin. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa sidoo kalena dadweynaha reer Somaliland ugu baaqay inay dhamaatay xilligii la imanayay goobta loo yaqaan biyo kulul oo uu sheegay in xilliyadan oo kale ay ku soo rogmadaan daadad ka yimaada meelo fogfog oo roobab ka deen, waxaanu dadka ugu baaqay inaanay goobtaasi xilligan oo kale iman. Gudoomiyaha golaha deegaanka oo ka hadlaya ansixinta ajendayaasha golaha deegaanku ka doodayay intii uu socday kalfadhiga labaad ee golaha deegaanka waxaa hadaladiisii ka mid ahaa goluhu in ugu dambeyn fulintu ay u madax bannaan tahay codna lagu siiyey in xoolaha ku nool hadday dameer yihiin iyo hadday lo yihiin iyo hadday geel yihiin iyo hadday ari yihiin 15 May inay kala baxdo ugu dambeyn wixii loogu yimaado fulintu ay fasax u haysato waajibkooda inay ka gudato saasuu goluhu ku siiyey dadka xoolaha ku dhaxaysta magaalada. waxaan u sheegaynaa inuu waqtiga raxmad ugu da'ay in goobtii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu talagalay in xoolaha ay ka dhigo iyaga ayaana laga sugayaa gudahoosaadka hawlaha guud ee golaha deegaanka degmada Berbera. kaana saasaa la isla gartay waa xarunka Sabawanaag loo yaqaano iyo maxaan ku dhahdaa Finland inay ka soo tala bixiyaan oo iyagu ay keenaan go'aanka dabadna goluhu eego dabadna lagu siiyo fulinta awood loo siiyo qaybiyada ku ansixiyeen mushaar kordhintii loo sameeyey shaqaalaha dawladda hoose oo si hadal markii lagu dhameeyay. waxaa kaloo la ansixiyey oo aan soo bandhignay deeqaha joogtada ah ay degmadu bixiso ee ay ku karto central government-ka meelaha hoos yaalla oo aanu gacan ka siino. kaana waxaa la isla gartay in weliba culays la saaro oo degmadu waxay ka qaban karto waxbarashada iyo caafimaadka in wax laga qabto oo haddii loo kordhin karo oo inoo saamaxo dhaqaaluhu inaynu halkaa kasii taagayno weliba. Cabdikariim Siciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.